إلهي وحولي جنة النمعة طالة وما لا عين رأت وح الله لي وح النمعة أركتين ويكوينتي وح كستو النمعة صو أركتو الدنيا ده قولي بقرها نقطة ما يلقوا راحستها نقطة قولي تاجرها نقطة وح كستا الله هلقوا تصو جنة وكا قد سنتي بإلهي لي نعمة طالة وحكالوكا قد سنتي ولا أذن سمعت وحدة مقشينا وكا قد سنتي وأنا معك بضن وحكستو لقاق الشيكي وحكالو إلهي كنت الماء النبي كنت الماء ولا خطر على قلب بشر وحكستو قلب بني آدم انكسور دعانا هدات استراحتو خيال كاغا imagination كاغا سيدا هدات استراحتو سكستو أدو حصة وارتبا إلهي لي سبحانه وتعالى جنة وكويتي قاسوا جنة دي الدنيا إلهي وينوسي فيه دي الجنة اللي يدو نمعك كستو أتقانا ويكبر لارنتي تراهان تياهان نوع والبو ويقف عنت الدون كان إلهي وحكوت الماما يسوق كي أبو ري جن عالم كخبير كا فاسأل به خبير بإلهي عدة وحلويدية وعدة علمي بديسه أقوان حال دير لاد بديسه إلهي بقوة الرمية العليم الخبيرة حكسي فيه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلهي الدنيا دي وحكسي فيه وحويا ندوم عيارته وحا الله يدهدا وحا بني آدم كو السمية أن هدف ملهين جيدا ملهين عرورته واسكبود بودا وعيارته وجيدا إكليه إنما جرته waxay ka doonayaanoo gaari ma jiro lahwi baa la yidhi lahwiga waxay yidhahdaan waa waxa dadka waaweyn isku madadaaliyo waxaan la yidhaha waqtigaynu dilaynaa ujeeddadu leeyahay waa maxay waa inuu timeka isa dhaafiyo laakiin macno damboo ka dhalanayaa ma jiro waxaa la yidhaha adduunkaa joogteen oo dhan isku soo dar ima inuu lacibiyey ama lahwi inuu yahay ama ziina dhaldhalaal iyo waxoogaa lagu faano waxoogaa la ismarmariyo qurux iyabaa ilaahay ku tilmaamay wa tafaakhurun baynakum faanfaanku afka qura maaha ficilkana wuu noqdaa markaynu maalin kasta moobilka u dambeeya markaad iibsanayso maxaad u iibsataa kaagii hore ma kuu qabanayaa waad u malaynaysaa kan dambe aad iibsanaysaa wuxuu kuu qabanayo but the same thing yani iphone 16 iyo iphone 17 iyo iphone 15 maxaa u dhexeeya adiga marka lagu eego mid walba telefoonkaad ka dirataa sawir baad ku qaadaa intii aad ku qaban jirtay horubu ka dabana qabtaa laakiin maxaa u dhexeeya prestige dee aduu xadaaradaad la socotaa kii u dambeeyey أي تابع لقى يا بيني والنوع من التفاخر وفانو مركو ننكو شاغنا يا علمي وادوكو هذا بروفيسور هبل باليدا دو هبل باليدا هذا محد يلا برستيج مربع مركو هذا دكتور هبل بان هاي بروفيسور هبل بان هاي كو تايتلس كانوا دمين تو ده بدني وامحي لقى بينو فانو سيتو مناصبتا لمدا وين هبل وزير هبل فلان هبل maxaa waxaan loogu daraya mad magacaaga wada sheegatay waa nooc min inaad mansab iyo magac iyo maamuus leedahay inaad tilmaamto marka adduunka waxa lagu hayaa waa maxay waa qofku magac iyo maamuus iyo mansab inuu leeyahay inuu muujiyo waa inuu ilaahay wuxuu ku tilmaamay watakaathurun fi lamwaali walawlaad hawla badsi ninka 100 daarood leh iyo ninka 10 daarood leh maxaa u dhaxeeya takaathurkii wuxuu leeyahay 100 daarood buu hebelay marka la yidhaahdo ama waa bilyaneer marka la yidhaahdo bilyaneerkii iyo milyaneerku isku xun bay cunaan soo maaha ma kala badsanayaan calooshaadu dee caloosha bilyaneerkuna ma weyna tawsaneerkuna ma yara wasku inuu bay cunada ka qaadaan maryaasku inuu bay ka xidhaan waxa kan laakiin maxay ku kala gedisan yihiin magac iyo maamuuskii rabaa kan
wuxuu bilyaneerka u sii noqonaya bilyaneerku ma fadhiya inuu trilyaneer noqdaaba ku socdaa marka waxaa layna leeyahay elon musk baa maraya 960 trilyaneer buu dhowaan u gudbayaa baa la tilmaamaya maxaa u kordhaya jas inuu yidhaahdo waxaan dunidu gaadhin ayaanan ugu gaadhin ilaahay markaa wuxuu inoo tilmaamay adduunyadu waa cayaar iyo lahwi iyo qurux iyo faanfaan laysu faano iyo badsi takaaurku waa un badsi laysugu faano carruur iyo xoolo tidhaahda 20 wiil baan dhala 1,000 halaad baan leeyahay waa faanu si awgeed ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaana wa tacaala ziinada iyo waxaasoo dhammayna wax zaa'ilayay marka halkan la joogo kuwa waari maayaan manaasibta iyo gawaadhida iyo daaraha iyo waxoo dhan waa laga tegayaa cilmiga iyo dhammaantood waa laga tegayaa xaggee la tegayaa aakhirana wax kalaa la isku xisaabinaya waari masaad soo dhashay cidina ku weydiin mayso aakhira su'aalaa miyay ku jirtaa qabriga maxaad xoolo ka timi iyo maxaad dad dhashay iyo maxaad shahaadad seetay iyo su'aalaha qabriga kama mid aha su'aalaha qabriga waxaa laynoo tilmaamay inuu yahay diintaadu maxay ahayd iyo nebigaagu kumuu ahaa iyo yaa kuu rabbi ahaa asiladaas qabriga la isku weydiinaya waxaad u fiirsataa bii'adii nebi maxamed uu ku noolay calayhi salaatu wasalaam magaaladii madiine ahayd ama maka ahaydba qur-aanka ku soo degay dadkaasi nolosha macmacaankeeda intay ka haysteen baad u malaynaysaa haddaad imika qiyaasto guryahay ku jireen nooc muu ahaa waxay fuuli jireen muxuu ahaa wixii la cuni jiray muxuu ahaa haddana qur-aan baa soo degay ilaahay leeyahay alhaakum attakaathuru badsi baa idin mashquuliyey baa ilaahay leeyahay inaga markaa maxaa layna odhanaya qoladii guryaha yarare dhoobadaa ku jirtay ee waxoogaaga yaree sariidku cunnadooda ugu fiicna sariidku waa khubus in maraq iyo hilib lagu googooyey intaas ay ugu fiicnayd wixii ay cunayeen ee noloshooda ka ahayd baa ilaahay wuxuu ku yidhi alhaakum attakaathuru xataa zurtum almaqaabir kalaa sawfa taclamuun uma kalaa sawfa taclamuun kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin latarawunna aljaxiim aayaadkani ciddii ku soo degaya kuwaasay ahayd qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramay qisati suurati alkahf 4 qisa ku jira waxaa ka mid a qiso nin xoolo leh iyo nimaan xoolo badan lahayn oo wada hadlaya kii xoolaa lahaa faanaya uu leeyahay ana akharu minka maalan wa acazu nafara buu leeyahy waranaa waanan kaa xoolo badnahay waanan kaa tol fiicnay ama waan kaa tiro badannay ama waan kaa wanaagsannahay ilaahayna wuxuu inoo tilmaamay aakhiro xoolo badni iyo rag badni iyo waxaa wax laguma helayee tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada daarta aakhira waxa iskale baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwaana adduunkan isweyni ku rabin iyo iskorraysiin iyo inay wax fasahaadiyaan toona aanu jeedin ilaahay agtiisa waxa lagu kala sharaf badayin baa la yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum sida ilaahay ugu kala cabsi badantiin subxaana wa tacaala wamaa uutiitum min shayin famataacu alxayaati addunya baa ilahay yidhi wax allaaliya waxa laydin siiyey oo dhammi waa nolosha birbidhkeedii wa ziinatuha wamaa cinda allaahi khayru wa abqaa afalaa tacqiluun ilaahay agtiisa waxa yaallabaa ka fiican oo ka waaris badan ee miyaan caqli idinku jirin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qofka caqliga leh iyo qofkaan caqliga lahayn maxaa u dhexeeya caqligu muxuu ina qabtaa qofku markuu waalan yahay maxaa ku dhaca doorashadii saxda ahayd baa ka lunta fiicanka maaha qofkan leena uu waalan yahay macnaheedu wax weeyaan wixii saxe uu dooran lahaa waxaan hayn buu dooranaya iyadoo dhaxana ayuu iska baxayaa isagoo feedho qaawan cunadii buu ilaabayaa kan buu ka tegayaa meedhashadii marka waxaynu qofkan ku aynuu nidhi wuu waalan yahay oo caqli kuma jiro wax weeyaan doorashada ka xumaatay doorashadiisiiba u saxma weyday ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa war adduunyada waxa yaalloo dhamme waa wax yar
إلهي أكتيس وحي الله وحبضنا في عنا ورميدنا عقل إلهي با إلهي لي سبحانه وتعالى سيد دور شدو يدك حماتي وياه إلا لبضا هداد كلا دورته وأطن دورته معنى هدوان محي ده سيدني كوالا بعضو رقم سويا واحد دورتي ماد استعمال راشنال متيد عقلي إلهي كسي سيدي لوغو طلقلي وماد استعمال مركاوية أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو اللاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وارما waxa isku midaba ilaahay yiri kanu adduunkan xogaa yar intaan ku siinay dabeetana nafta laga qabtay iyo miyuu la midiyay kanu aakhira wuxu ballan qaadnay ilaahay ballankiisi aakhira helay ayuha alahibba wal aakhiratu khayrun wa abqa bayna ilayhi nabigu wuxuu damay alayhi salatu wassalam saxaabadiisi si practical inuu tusiyo qofka bini aadamka ahi sawirka iyo waxaan uu kaga horfahmay og yahay maxay waxa hadalka saxaabada iyo nabiga ay soo raacay alayhi salaatu wasalaam suuqi magaalada madiina ay soo galeen dabeetana iyadoo suuqi madiina la marayo ayuu wuxuu ku soo baxay nabigu orgi neef yar oo orgiya oo dhaga yaryar ama dhukan kuwan ay Soomaalidu tiraahdaa oo bakhtiyay oo meel yaala neefkii yaraaya bakhtiga ahaa buu nabigu dhegtii yareed qabtay markaasuu wuxuu yidhi ayukum yuxibbu ana hada lahu bidirham warkiinee jecelkan inuu hal dirham siisto yaa hal boundiga siisto kale weeyaan ka ayaa iibsadanayo bound siisanaya waa orgi bakhtiyey waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow inaannu yeelannana xataa ma rabno inaannu iibsanno daayo lacag siisanee inaannu yeelannama oo maxaan ku samaynaynaa bay leeyihin orgi yaroo dhukanoo bakhtiyey wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxba ha bixinine ma qaadanaysaa bal lacagtaba iska daayo baaba ha ka bixinine atuxibuuna annahu lakum ma jeceshin inaa yeelataanuun lacag ba ha siisanine waxay igu jawaabeen والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك هدو حتى أرجي النولا أهان لكن روا بختي منك هدو النولان لها مد إن لبو أهان لا عيبيسان ويقولوا كي أرجي حتى قرح لما هبي إليه كيو بختي محن كفالينا بيكو إلى إليه رسول كسيو هل كن النبي يقول سعودي وجددي سوات المركة والله إلا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم إلهي بان كل دارتي بالنبوي الدنيا دو إلهي أكتيسة ويكاقا قيمة اللي داتا كان إذن كأكتي نقيمه إذن لتشوفه انتو كان إذن كقيمة إذن لا هي الدنيا دو ويكا اللي داتا محي إلهي أكتيسة بالنبوي المامي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة مركب الدنيا آخرة وحلا يسقط دور طماها وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أدونك يا آخرة عدة إسلاف ستي أدونك دورته لما الشيب إلهي كنت المام عقل الآن يا أقول الآن وضع يضد من نوح الليل أفلا تعقلون من نوح الليل لو كانوا يعلمون معنى دوا محي نك أدون دور بيضي آخرة ضياعي إن أنو علمنا لهين عقلنا لهين لبدي الشيء بن آدم كاكتس قيمة كلها أو بن آدم كوحكوك للدوران كريي لبدا من نبينا نشرين sida awgeed qofku baa la yidhaahdaa inuu adduunyo doorto oo aakhira hilmaama sababaha ugu waaweyn keena mid waa jahli baa la yidhi cadam alcilm oo muxuu jaahil ka yahay xaqiiqatu dunya xaqiiqatu alxayaati dunya muxuu jaahil ka yahay qiimata alaakhira iyo waxa aakhira dambeeya ayuu jahil ka yahay ka labaadna waxaa la tilmaamay inay tahay اغترار
وكتسومي ومحوكو كتسومي دي الدنيا دنبكو كتسومي ووحوين مودي وحكى الله قلت الماما إلهي سبحانه وتعالى آية قرآن وحي نشيغن ودن قلت الماما تتكبرنا وحل هذا طول الأمل يا رافية وأركينا دون كليته آخرنا في عنتي وأركيا لكن وحي سلا بريتا تسمين دونتا سادة ما قبن دونتا إن شاء الله تعالى طول الأمل نلشو دير يستا إلهنا وحلي يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وارضضوا بإلهي إلهي يبوهي سوى رب آخرة يوحي دين شيء يا حسابته يا واحد ضبية وروى رب إلهي لي سبحانه وتعالى أي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ورنولش الدنيا يا إذن كدني يا إذن هودن أكوك تسومنا إلهنا يو إذن دافن مذهب وصني بقى الله تلمامي سبحانه وتعالى الدنيا ده ولا ينوقر حيي وهو موضوع الامتحان ده الدنيا ده واحد فاول حول لك ولا لا يعيد ما صار يسين ده تذكر ده ماله كانوا سكنوا الله لكن واحد لو يري تنوى لدل دلالي واحد بدون النفط هذا الشيء عشان الله نحدق لكن هذيك عقلي بقى لو سيء أما تهاد دورا لو يري وآخره هو أما آخره ده صار لك أجور رمية آخره دوره وإليه سبحانه وتعالى مركز الدنيا ذاك ورم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر إلهي وحلي دتك وحلو قرحية أوينك حولها لعقتا ذهبك فضة فردها لا تبري بيرها حولها وحاصر رب إلهي آيات قرآن استبدك كذب إلهي وحقوق بقبي ذلك متاع الحياة الدنيا انت أردني سوتي ريونمي ونرشها راحت دي كوبنيت بإلهي لي والله عنده حسن المآب لكن إلهي سبحانه وتعالى ما الله نغض قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها ورما إدين ورما بإلهي آية كحكت ما إدين كورما وحان إدين شيء الدنيا الدلال كذا وحيدين كخير بدن وحيدين كفي عن كو إلهي كعب صدا جنوين يا بيرا يا نمعوين يا أزواج مطهرة يا إلهي لعشيسة وحاصر دم بيلي وحاهو بنتيا قفك مسلم كي الدنيا دو لوينان ويدا كوي لوين تاين كوتشيس جاسي دونان لكن وحيو بهانتاي إنه قفك مسلم كي يساقو الدريمو ودد الصحة كي تهي وسووا وناقة وكفار ولذلك بقى إلهي وحليه سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا وقالوا بي وحلو قرحية إنه لشن الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا بإلهي وأنا كتشيس جيسيا كون مؤمنين تأيوا دونك قيمة أنت نلاقي نسيم وعيب والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة بإلهي كون لكن إلهي كعب صدا maalinta dadba isu iman doono kuwaasaa koreeyaba ilaahay yidhi subxaana wa tacaala qiyaamaha maalintaas ayuha alaxiba ilaahay kumuu daynin inuu inoo warramo oo qurholo inooga warramo jannada iyo nicmada taalla naarta iyo cadaabka yaalla adduunka iyo yaraantiisa cimriga adduunka iyo gaabnidiisa kuwaasoo qura ilaahay kama warramina waxaa le kaloo layna siiyey tusaalayaal bini aadamka ka mid ah oo baahida aynu leenoo kala lahaa laakiin labada tan markay timi aakhiro doortay maxaa ka mid ah ilaahay qur-aanka wuxuu ka warramayaa qof dumaroo haweena oo ku noolayd gurigii boqortooyada markaasee ugu fiicnaa imra'atu fircawn aasiya bintu musaaxim waxay ku noolayd guri qusuur webiyaal nicmo adduunyo oo dhammi taallo waxaa qabay ninkii lahaa alaysa lii mulku misra wahadihi alanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun
والبغرطوية مصر ميانا نقول هين ميان وحن هو بيالدر هوستي دا درينين نعمة داسي كجرت لكن إلهي بي الرميسي دبتنا فرعون جروب كيس وكسهر جيستي وحي كلا دورتي نعمدنا الدنيا إيه ستية آخرة إلهي مركا إنك وحين لي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلهي وحط الصالة وقدق يا كوى إيمانك لقاها لي هوين يدي فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين كد عيساني سي إله قصرك آخرة دونية كان الدنيا قيمة يلا ماله قصورت آخرة باليستسكا آخرة كتيرة كواسان ربا وربابي لذا كان من ربو إله فرعون يا الظالمين تدبتو ديقا نبت قالي أديقا أكتا دا قرية أنا إله السيبا إله قبلنا وحلا ينقل تلبامي مركا إني الدنيا آخرة قصورت الدنيا كآخرة إني دورتي محي إنه وحلا يبقى قصور متوهمة إنه دورنا ما بهيسيت وهتسلادي وحبت سهل الدون تا قوة ودغل دنا وتوضى يدو حقيقة يدو هيسة أي وحي كدورتي كو إلهي أكتيسي الله سبحانه وتعالى وحكوا له إلى القرآن كقور رمية نمن فرعون حاشية دي سامتت كأقردوها سحرة فرعون مركي فرعون سو حاضرية لها وحا وبحيسان نبي موسى نبي هارون با سحر كينا كله ارتقيسان ورانك وحي نوشي سؤاشي ويديان فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا أجر ما لنا هبه محان مش قايد لنا يبي دادين هدي أنو شبينو نبي موسى نبي هارون دانو كو حق بدنو محان لنا هاي وهي المقربين تاكم من نقونيسان كويدو حاشد الدولة وزير هذا حقا باكو صبيريسان ballankaasay ku dagaal galeen markii ay u caddaatay nabiyullaahi muuse iyo haaruun waxay wadaana inuu dacwo xaqa yahay ambiye inay yihiin janniya naar inay jirto warkaa markii ay rumaysteenna waxay idhaahdeen aamanaa birabbi haaruuna wa muusa nebi muuse iyo nebi haaruun rabbigii ayaanu rumaynay fircawnow rabbinimadaadi ma rumaysnin wuu hanjabo wuxuu waan idin dilayaa ولبا صفة الحمبان يدين دليا دل عادية معها انتان تلانتال يدين قويو لقيا أدن بين تان يدين شارو أيام ولبا كروس وايد صلبين اياه وأنا ندين قوي ديا وحيو جوابين فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وروحات سمعين كرت السماء بينها شو أدون كان كل عارفين إنهم ما هبيلين ما عدب كذا بياتشنا وات سمعين كرش هذا ياركا ويا أدون كان يدليا السماء بينها دل الدنيا إلا الله ويا آخر اللبانان هي إني بقر كأكتي سوى أجر هلام بي واحد دورتين تن مركي إيمانكو قالي إذن قفك مؤمن كا عقيدة ديس وحاول رميسين هي نمط الحياة way of life كيسو قابك والربا إنو نولادا وين يسوافقان نينك قالت ويسوافق سيين هو الرميسين أنا ما آخرت لنا مسديس أين آخره أيو أنفعيسو أما قفك مسلم كاي وحو رميسين يهي أدون كان إنو ميل كوبان الله اسكو اتحامي يونو يهي muddo koobanna inuu joogayo kadibna ilaahay inuu hortagi doono la xisaabayo janniya naar iyo abaalmarina inay jirtay rumaysay sawgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaro buu tala bixin siiyey innaga waxa laga yaabaa dhallinyarada marka ay la talinayno maxaa kula talinaa waryahoy nin noqo oo meel ka soo baxa أبا نين نقو مالك الصباح نين نقضي إنه أنت بدر رادين نوام حي وينو ده دون كان حوكسدو أنا كجورسدو عرور نالو الله عقيا شو رجعني ما ده إنه هينا إنه كل رجالنا إنه نقضاواكا نبي محمد عبد الله بن عمر رضي اللي يراه أي الله هذا جرب وقت رسول حكيري كن في الدنيا كأنك غريب أو عبر السبيل
وأن اللي يراه وأدونك هدا وعسب يهي رؤية وانشر ما لها سيها أي النبي عليه عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل ورياء أدونك واحد كو أهاطاه نين غريبة غريب وسترينجر وقف مالي يميو عن دكتر سنين مالو سفركم مريونا أو عابر السبيل ما متجد قوينية سفر واسك الصعدة سداس وكالي أدونك كو أهو أو معنوها محي آخره وحوك سويا هلك واد كسي سعتابا الله تلمامية نقول ملا هدينو intaan cid kula talin lahayn waxaynu kula talin lahayn oday gaboobay oo fadhiistay oo dee adduunka soo qoostay baan odhanay waryaa war adduunka ha dhammaayay aakhira ku seegi kaasumaynu ku odhan kari lahayd laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nina iminka bilow u tahay oo hadda bilaabayo wuxuu ku leeyahay war adduunka kan waxaad ku ahaataa maxay caabir sabiil qof jid goynaya musaafira ama qof غريب oo meel aanu u dhalan ama deegaan ka ahayn joogo markaa soo galay sidoo u dhaqmi lahaay oo kale u dhaqan baa lagu tilmaamaya ayuha alahibba waxa ugu weyn qalbiga bini'aadamka iyo aqligiisaba toosiya waxa kamida alam yaani lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min al haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إلهي وحنا الله سبحانه وتعالى تتك مؤمنين تايمان قارن وقتي قلبي يضوض خشوعان إلهي حسكي إيو قرآن كان اللي سودتي وحكر يكو خشوعان من السبال إليه وانا إلم بدنقونين سيدي كوي وقتك وكل إرادي يا أهل كتاب كده بتنا أنبضي با إلهي سبحانه وتعالى قول الأمل هي تصويفك إن تستراحه إن شاء الله حاجة ضماتك حاجة دونتا إما كسكسي ود براد وحقبان دونتا أين تستراحه أما واحد أنت قبان كريس أين تبري وسير لك تا وحيابا هو وين أسباب الغفلة أما أسباب إيثار الدنيا دتك وين آخر غفلة كقشامة يدونك الدور بدانا مقابل كيدنا إلهي عبسديس iyo dikriga badnidiisa iyo aakhiro oo kula dhawaatay iyo ilaahay inaad hortaagi doonto aad xasuusnaataana waa waxyaabaha keena inuu dadku aakhiro doorto markaynu tilmaamayno aakhiro doorashadu waxaa loo dan leeyay adduunka waxaynu haysanno inaynu u adeegsano inaynu aakhiro ku gaadhno hadday cilmi tay hadday adduunyo tay hadday caqli tay hadday raganimo tay hadday aftahamo tahay inaad isku daydo inaad u adeegsato aakhiradaada inaad ku gaadho xoolaad heshay qofka aakhiro u fakaraya wuxuu ka fakarayaa xoolahaasi siduu ugu janno tegi lahaa marka wuxuu sadaqadaysto wuxuu masaajid gashado wuxuu bixiyo qaraabo iyo qoys iyo ciduu doono ha siiyo wuxuu raadinayaa inuu aakhiro daara ka dhiso qofka aakhiro ku yartayna halkan buu aad uga fakarayaa dhagax iyo dhoobo tiro badan leh inuu isa saaro oo la yidhaha waa daarihii hebel ila magacaas uu doonaya kulla geli maaye hal sariiru buu isagu ka seexan laakiin magacuu raadinaya in la yidhaha war ninkaas waa nin rag oo iska daadhan isagaa dhisay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa nin xoolo badnaa oo reer banu israa'iila oo lumay oo tolkii la talinayo laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin warooyaha kibrin bay ku yidhaahdeen ilaahay ma jecla kuwa farxa ee maxay sameen wabtagi fiima aataaka allahu daara alaakhira bay yidhahdeen war nimcadan ilaahay ku siiyey war aakhiro ku raadso waxay alla ku siiyey aakhiro ku raadso oo walaa tansa nasiibaka min addunya adduunyada nasiibkaagana ha ilaamin wa axsin kamaa axsana allahu ilayk oo u wanaagsano oo u sabafal sida ilaahay kuu wanaajiye kuugu sabafalay
waxay kula talinayaan markaa adduunkiisii iyo raganimadiisii iyo wixii ilaahay siiyey inay aakhiro wax uga gooyaan inuu ka fekero. ilaahay ambiyu ka warramayaa guulaysatay. nebiyada ammaanta gaarka ee ilaahay la siiyey waxa weeyaan inay ahaayeen kuwa aakhiro aad u xasuusan. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. waxaad xustaa baa ilaahay inoo sheegtaa addoommaha yagii nebi ibraahim, nebi isxaaq, nebi yacquub, ulul aydi walabsaar, kuwii cibaadada iyo ilaahay cabsidiisa ku xoogga badnaa, aragtida dheerna lahaa ee ulul absaarka indheer garadkana ahaa. qoladaasaa ilaahay u ammaanay. maxaa la yidhi? inna akhlasnaahum dikra daar baa ilaahay yidhi. iyaga waxaanu u gaar yeelnay oo ay ku mudnaayeen aakhiray xoog u xasuusanaayeen baa ilaahay yidhi. xusuusta aakhiro, dikra daar alaakhira, taas bay aad u xasuusnaayeen baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. ayuha alaxiba, warkoo koobani wuxuu yahay war aakhiro ayaa ka weyn oo ka ballaadhan. oo dee qur-aanku waa tilmaamaya jannatan carduha asamaawaatu walard. ama nebigu uu tilmaamayo ninka aakhiro jannada ugu boos yari wuxuu leeyahay baa la yidhi adduunkan iyo 10 laabkii. whole this universe aynu joogno iyo 10 laabkii buu leeyahay ninka ugu booska yar la aakhiro baa la yidhi. marka laga warramayo nicmadeedana mawduucu sawtku waa dhegadan yare fardaa lagu kaxeeyo qofka faraska fuushane ushan yare uu sitee uu saa ku idhaahdo taa meel la dhiga imisay noqonaysa 3 sentimitir iyo 1 mitir baa laga yaabaa inay noqoto dee balleeceed dheer. intaa in leegoo jannada abaa adduunkana ka quality fiican buu tilmaamaya. sidaa ogeed ayuha alaxiba, aakhira iyadaa baa la yidhi abqaaya, iyada waaris badan oo aan laga dhimanaynin. adduunka warwarkeenna ugu badani waxa weeyaan geeri baad ka baqaysaa, inay kuu dhadhami weydo aad ka xanuunsataa baad ka baqaysaa. munaqasaadkeeda xataa qofka waxoogaa isla helaa mushkilaadkeeda kale aanu ka nabadgelaynin. kuwa ugu lacagta badan leh hadda Elon Musk baa u lacag badan soo maaha. 10 sane ugu dambeeyey kiniin buu ku seexanayay, waa ikti'aab buu qabaa. waa marka kii xoolaa laa waa xanuunsanayaa, kii aan waxba haysanin waa iska dhiban yahay. wixii oo dhammi adduunkana waa wada munaawo, qof ay u dhammaystirantay lama hayo. waa mashaakilkeedu xataa kii wax helay dhadhan uma samaynayso. aakhirase lama bukoodo, lama xanuunsado, lama warwaro, lama waayo. wax allaaliya waxay nuqsaan adduunku leedahay ma leh, wax allaaliya waxay nimco leedahayna way ka badantay. waxay nuqsaan leedahayna ma leh. waxaynu u baahannahay markaa inaynu si fiican u fakarno. waa mar kale adduunyadan aynu joognaa islaaxeed iyo wanaaggeedu wuxuu ku xidhan yahay rumaynta aakhiro. waayo hadday aakhiro rumaynteedu dhab noqoto dulmi ma jirayo, oo khiyaano ma jirayso, oo fasaad corruption ma jirayo, oo qofku ilaahay buu ka cabsanaya. qofka aakhiro ka warwaraya maxay? dadka ma dulminayo, waa cadaalad samaynaya, ma boobayo, ma dhacayo, ma khiyaamaynayo. idan adduunka wanaaggiisa xataa wuxuu ku xidhan yahay rumaynta aakhiro la rumeeyo. kuwa aan aakhiro rumaysanin waa kuwan dadka dulminaya ee boobaya ee dhacaya ee laynaya ee saatan u samaynaya. kuwa le waa rumaysannahay ee intan samaynaya dee afkay ka sheeganayaan qalbiga saani uma degana. qalbiga saani uma degana. hadduu qofku si dhab aakhiro u rumaysan yahay dadka ma dulmiyo. si dhab aakhiro u rumaysan yahay. walidaalika qur-aanka axaadiista nebiga markaad aragto waxaa la odhanayaa man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir. warooy ninkii ilaah iyo maalinta aakhiro rumaysanow waxaa ha samayni. ninkii ilaah iyo maalinta aakhiro rumaysanow sidaa ha yeelin.
لكن maalinta ilaah iyo maalinta aakhira rumaysan oo sidaa yeel marka adduunkan aynu joogno islaaxiisa xataa wuxuu ku xidhan yahay adduunkan inaynu wanaajinaa wuxuu ku xidhan tahay aakhira wanaajinteeda kuwaan aakhira rumaysnayni waa kuwa adduunkan dadka dulminaya laynaya dhacaya boobaya mashaakilka oo dhan wada haddaad in yar ka aragto iyagoo qaarkood run sheegaya ama caynkan waa run economics ku xidhan waa run uu credibilitygiisa dhaqaale ku ilaalinaya ama waxa ku ilaalinaya ee run uu aakhira uga dan leeyahay maaha waa uun adduunkiisan waxyaabo uu isleeyahay baa kaa lumi doona ayuu ku ilaashanaya waxaan idinku soo koobayaa waxaa ku dhex nooshin dad aan aakhira rumaysnayn markaad la nooshay dad aakhira rumaysan waxaa laga yaabaa deegaanka iyo environmentku inuu ku jiito aad dhankaa ula socoto laakiin marka aad joogto dad aan aakhira rumaysnayn ama materialistic dad markaad ku dhex joogto ma fududa inaad ka gadisnaataa inaad qof go'aan la tahay mooyaane qof aakhiradu aad ugu muuqato inaad tahay mooyaane qof ilaahay dhab u rumaysan inaad tahay mooyaane marka idinku waxa u sii baahantihiin iimaan ka weyn iimaankii kii muslimka la noolaa ilaan waxaad ku dhex nooshahay wasat aan xagga khayrkaba u socon waxaad ku dhex nooshahay deegaan maadiyaadkuna yihiin wax lagu qiimaynaya sida awgeed inay caqiidadiinna xejisataan aakhiro rumaynteedu dhab idinka noqoto prioritiga koowaad iyadaa siisaan aanad odhanin saacaddan konton bawd baan soo shaqaysan lahaa ad leedahay carruurta wuxu dhig inaad aakhiro gashato saacaddu inay kuu qiimo badan tahay inaad soo shaqayso laguma laha gaajoodo ha shaqaysana cidina kuma laha laakiin prioritiga inaad siiso aakhiradaada wixii ku islaaxin lahaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin